aniga marka astaanta adeegaha waxaan u aqaanaa 3 arrimood oo kaliya mid afraad qofkii keena khayr Allah siiyo koow waa amaanada waxaan umadu ay isku waxay umadu kulli ay arwisay oo laga qaaday in amaanada loo hayo oo sidii loogu hayo oo si cad ah oo waxyaabaha hadda halkan maanta aan ugu nimid oo European Unionka iyo World Bank-ga ay bilaabeen inay nagu aaminaan oo kalsooni aan kaga helnay maxaa yeelay waxa keen dhaqankii ay yaqaaneen oo wadamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilaabnay marka awal lacagta way hayeen waxay isku dayayaan inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabkii u dhaqmaan oo dadkooda u maamulaan inaan dadkeeda u maamulno tan labaad waa cadaalad dal aan cadaalad lahayn system cadaalad aan lahayn macnaheedu dee ma istaagi karo wax shaqayn karna ma laha marka cadaaladdu waa number 1 weeye cadaaladdu waa number 1 marka qofka aniga aan ugu horeeyo waxaan laga rabaa waxay tahay amaanada ummadda inaan u arkeenno cadaaladda inaanu qofna adiga ku fogeynin adiga ku soo dhaweynin cadaaladaan u qabo iyo siyaasad ku taqaana siyaasadda waxaan u naqaanaa meel la isku khiyaamo xero baraaya ka socoto oo nin walba ninka uu ka khiyaano badan yahay uu maxaan ku raahdaa ka faa'iido badan yahay saas maaha siyaasad haddaad maqashaan waxaa raadis xal been laguma raadin karo xal runtay taqaanaa haddaad dhimacdoonaad ku raadisto oo aadan columskii dhabta ahaa aadan gelin oo lacagta aad kala xaddo guriga waa dumaya waa xaqiiq way marka shakiga dad badan ay ka qabaan baarlamaanka iyo shaqala'aanta kalfadhiga saddexaad waxaa sii kordhiyey mugdi kale oo soo wajahay qalka baarlamaanka bilowgii bishii Ramadaan xilligaas oo labada aqal ee baarlamaanka ay soo gaareen jawaano ay ku jirtay lacag dhan 1,645,000 oo dollar sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay lacagtani waxay ahayd mid loogu talagalay xubnaha baarlamaanka galka baarista waxa uu la hadlay 10 ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo 7 ka mid ah ay sheegeen inay ka timid dawladda Soomaaliya lana siiyay xubnaha labada aqal kan sare iyo kan hooseba 4 ka mid ah xildhibaanadaasi aan la xiriiray waxay qirteen inay lacagtaasi qaateen 3 ka mid ah waxay sheegeen inay diideen balse ay goobjoog u ahaayeen saaxiibadooda oo qaadanaya halka 3 kalena ay diideen inay beeniyaan ama xaqiijiyaan xogta galka baarista uu ka helay xubnahaasi baarlamaanka waxay muujinaysaa in xildhibaanada badankood 98% ay qaateen lacagtaasi oo midkiiba ay ku aaday 5,000 oo dollar lana qaybiyay toddobaadkii ugu horreeyay ee bisha Ramadaan lacagtaasi waxaa qaybinteeda loo xil saaray horjoogayaal ku salaysan habka beelaha ee 4.5 mid ka mid ah xildhibaanada ay lacagahaasi soo gaareen waa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxaan maqalay lacagtu inay ahayd xildhibaankiiba 5,000 oo dollar in la siiyay qalad miya tiradaasi هارون روتي horta afkaaga furinkahaga aan tiriyo Soomaalidu waxay taada ma wanaagsana diiba ay maartay xildhibaanadu saan ku sheegay foolbaxsigaas maartay u jiro waa saan ku yiri waa wax ahmaal loogu talagalay Afrika oo badanaaba wax dhaca ay tahay inay maartay hay-aduhu hadda markatiyada saacadaasi awood u yeelata iyadoo baarlamaanka laftirkiisa hadda afooyinkan jira iyo waxa dhacaya iyo daadadka lacagtu meesha ka timid ma idin sheegeen inay tahay canshuurtii dekada inay tahay kaalmad dibadeed inay qof shakhsiga ka soo baxday jeebkiisa meel ay ka timid ma idin sheegeen kulay DBD kama imaan DB World kama imaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu isaguna ii sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanada diiday inay qaataan lacagtaasi maalmaha ka mid ah iyo waxa ila soo xiriireen odayga aan doonayay magaciisa ka xuso wuxuu ugu dhahay xildhibaan Cabdullaahi waxaan ku hayaa lacag marka waxaan ku wari maxay ahayd lacag wuxuu u qaatay inuu weydiiyo tiradeeda maxay tahay marka wuxuu ugu dhahay lacag 5,000 wala tiradeeda kuma weydiinay maxay tahay ku wari marka wuxuu dhahay waa xukuumadda bixinayso waa lacag loogu yeeray xaqal ciid xaqal soon waa ku qoslo waxaan xukuumaddu maxoolihii dadkeeda ay nagu siinaysaa sadaqo ahaan goor bay xildhibaanadu ka mid noqdeen dadka ay ku kacdo sadaqadu
ama ma garanaysaa dadka cashuurta xoolaha dadka laga soo qaaday ay ma garanaysaa in la siiyey yaa adig ku mandatekas kuu siiyey inaad canshuurta dadweynaha u qaybisay xildhibaanada may walaal wuxuu dhani waa la iisoo dhiibay dadka laiigu soo dhiibay ayaad kamid tahay un ku celiyo ayaa kuusoo dhiiban kuuri markaas wuxuu ugu dhacay xukuumadda ay iisoo dhiibtay marka dee waxaa xusid waxaan ku ori kolba anigu kamid maahay dadka ay ku kacdo sadaqada oo ay tahay in la siiyo cashuurta ma garanaysaa shacabka soomaaliyeed marka waxaa kaloo cajiibaheed walaal xilligaa la qaybinayo xoolaha intaa la eg ee gaaraya $2 milyan waxay aheeday xilli dee ay ahayd hadiiba xishood jira in laga xishoodo waxyaabahaas oo kale in lagu kaco saas waxaanu leeyahay xilligaas waxaa taagnayd fatahaadihii aadka u xumaa ee ka dhacayay maxaa la dhahaa gobolada dalka sida jubbooyinka iyo shabeellooyinka iyo gobolka hiiraan oo dad aada u fara badan runtii dee oo weliba kamida dadkii canshuuraha bixiyey ay geedaha hoostooda iyo ma garanaysa aada ugu duruufaysan yihiin waxaa laga yaabaa in xubnaha baarlamaanka qaarkood iyo taageerayaashooduba ay ku doodaan in lacagtaasi ay yar tahay aysan ahayn wax u qalma in laga hadlo laakiin waxaa su-aashu ay tahay maxay ku macnayn lahaayeen haddii lacagtaasi intaasi ka badan lahayd dadka ka shaqeeya anshaxa waxay ii sheegeen in lacagtani ay su'aalo badan ka iman karaan oo ay ka mid yihiin halka ay ka timid iyo cidda ku deeqday mise waxay ahaayeen lacagihii canshuuraha ee laga arooriyey dadweynaha haddii ay lacagtani ka timid qasnada dawladda maxaa loo siin waayey xubnaha kale ee dawladda iyo shacabka ee u baahan ee ay ku jiraan ciidamada ku sugan gobollada ama kuwa dawladda dhexe ee weli mushaharkooda ay bila ka maqan yihiin haddii ay lacagtani tahay mid lagu deeqay oo magaca ummadda soomaaliyeed lagu soo qaaday maxaa caddaynaya inay intaas ku koobnayd oo aysan ka badnayn oo aysan jirin lacaga intaasi ka badan oo lagu bixiyo siyaabo ka qarsoon shacabka marka ay noqoto dhinaca anshaxa sidee ayay xubnaha baarlamaanku uga madax bannaanaan karaan dawladda ama ciddii ay lacagtaasi ka timid sidee ayayse xubnaha baarlamaanku qiil ugu heli karaan inay si hoose lacag u qaataan dadweynahana ay ka qariyaan su'aal kaleoo la isweydiin karaa ayaa ah haddii uu dawladda soomaaliya dakhligu u kordhay islamarkaana kobac dhaqaale jiro wakiilada ummadda soomaaliyeed ma waxay ahayd inay iyagu iska bilaabaan mise inay eegaan meelaha ugu baahida badan ugu dambayn galka baaristu waxa uu la xiriiray xubno ka tirsan dawladda soomaaliya si uu wax uga weydiiyo lacagahan hase yeeshee waa inoo suurto geli weyda inaan ku qancinno inay ka qayb qaataan barnaamijkan